warbixin kooban oo aanu ka diyaarinay dugsiga hoose dhexe magaalada Gumar waxaa dhismo ahaan ku yaala 3 galaas waxaa dhigta 150 arday waxaad arkaysaa ardayda oo 5 iyo 4 ba ku wada fadhida kuraasta ardaydan oo aanu weydiinay sababta ay ugu fadhiyaan ama keentay inay noocan u dugsani ahaado waxa ay noo sheegeen galaaska iyaga waa nagu xiriiri marka meesha xanuunaha laga qaadaya kursiyadiina waa nagu xiriiri galaaskina laga duminaa lama dhisin meeshuna waa nagu xiriiri walaa had ma laga dumiyaa waxbarashada waxa ku baabaaday wasiirka waxbarashada gooyo waxa sababtoo ah waxa baabiyay wasiirka waxbarashada waxa ku dhiganay fasaladii waxaan ma jiro waxbarashada halkaas ku baabaaday sidoo kale guddiga tuuladaasi oo goobjoog ahayd ayaa waxa ay ku eedeeyeen wasiirka wasaaradda waxbarashada in uu mas'uuliyadiisa ka gaabiyay sidoo kalena waxa ay sheegeen inuu goobtan uu ka dumiyay wasiirka wasaaradda waxbarashadu 2 galaas bedelkeedina aan laga haynin guddidan ayaa aad ugu dheeraaday taariikhda uu leeyahay dugsigani aan halkan kala hadlaynaa wasaaradda waxbarashada oo aan doonayno in iskuulkii ay naga dumisay 2 galaas ee hore iskuulkaygu isagoo marka horeba dib u dhac badan ku jiray oo ahaa iskuuladii ugu horeeyay Soomaaliland laga aasaasay 1954 iminka waqtigan marayay 6 galaas ayaa waxa la naga dumiyay 2 galaas oo ay ku dhigan jireen 7ka iyo 6ka iyo 7ka 5ka iyo 6ka ay ku dhigan jireen iyadoo marka horeba uu naga dhinaa 7 iyo 8 ayaa 2 galaasna naga dumiyay wasiir toornaana dumiyay waxaana noo ballan qaaday in miisaaniyadii 2022 lagu darayo iminkana miisaaniyadii 2022 way dhamaatay oo waqtigeedu uu dhamaaday ilaa haddana ma hayno ardaydii cidhiiriga ay ku jirto iyo caburaada haysata waa dareemi karaysana waa aragteen oo halkan ka daawan doontaan ardaydii galaasyadii ba la isugu geeyay ilaa 5 ilaa 6 ba lagu caburiyay inay galaasyadii kale 4 iyo 3yadii la galaan ilaa haddana ma hayno wax qabadkii noo ballan qaaday dhismihii noo ballan qaaday wasiirku intayada aan nabnaban lahayna dawlad naga dumiyay iskuulkanina iskuul da yar maaha wasiir toorna waxa aan u sheegaynaa inaanu iskuulkan mid u yaraysan kara aanay ahayn oo madaxda dawladda ka tirsan halkii ay ka soo anba qaaday ka soo baxday ay yihiin ragga ka soo baxay ee hareerahaaga taagan hadaad ogtahay toornay baan leenahay maad yaraysateen iskuulkan mujaahidiintii dalkan soo halgamay baa ka soo baxay darawalo kale ay kamid yihiin maxamed warsama ka soo baxay cabdiqaadir jirdaa ka soo baxay iskuul maanta la yaraysan kara ma aha hadaad moodaysay maalinta duminaysay inaad yaraysanayso garbahaagay taagan yihiin ragga iskuulkan ka soo baxay iyagana wax ka oran doona wixii ka dambeeyay laakiin waxa aanu ka sugaynaa wax qabadkii iyo iskuulkii aad naga dumiseed noo ballan qaatay inaad sida ugu dhaqsiyaa badan noogu qabato adigoo wax kale oo aad noo tarta aanu imanin oo wax kale ku soo kordhin iskuulka ayaad intii noo dhisnayd qayb sii dumisay ee aan kabkaban lahayn ilaa haddana kaama hayno miisaaniyadii aad noogu ballan qaadina way dhamaatay halka waxaan leenahay wasaaradda waxbarashada wax qabadkeedii kama hayno waanu maqan yahay dawladda Soomaaliland dhamaanteedna waan ogeysiinaa waxa kale oo ogeysiinaa madaxda gobolka heer degme iyo heer gobolba in ay ku daba taagnaadaan ballan qaadkii ahaa in wax qabadkii iskuulkii uu dumiyay ee uu yiri waan dhisaya inay ku daba taagnaadaan isduwa waxbarashada iyo barasaabka iyo maayarka cid kastaba inay noogu daba taagnaato oo ay ka rabaan mar kastaba inuu dhismihii uu ballan qaaday fuliyo assalaamu calaykum galaas waxa noo dhisnaa 6 galaas markii laba ka mid ah wax ku yimid waxa laga dumiyay wasiir toorno ilaa haddana wax uu ka qabtay oo laga dhisay ma jiro waxaanu leenahay wasaaradda waxbarashada iyo wasiir toorno ma halkii aad wax nooga sii kordhin leedahay 7kii iyo 8kii naga dhinaa aad noo kordhin leed ayaad labadii noo dhisnaana ee iska kabkaban leey markaad dumisay dibna aadan ugu soo jahan waxaanu leenahay heer gobol iyo heer degmo iyo dawladda dhamaanteed wax qabada oo ka hayna wasaaradda waxbarashada ma jirto caruurta halka wax ku dhigata waa 150 arday waxaana isku saarayeen 4 galaas oo qaar la dhisay taariikh dheer oo yar ay yihiin waxaanu leenahay wasiir wixii aan dalka aan ku lahayn kaama hayna wasaaradda waxbarashada waxaan ku lahayn kaama hayne si dhaqso ah uga soo jawaab ayaan leenahay assalaamu calaykum wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam in halkan waxaan ka salaamayaa ardayda macallimiinta iyo deegaankaba labaad
halkan marka waxaan joognaa madashii iskuulka laga dumiyey 2 fasal baa laga dumiyey waqti imanka dhowr bilood ilaa 2 sanad iyo sanad buu maraya dumintaasi soo kama sanad maaha sanad meelaasay maraysaa ilaa 2 sanad maraysaa caruurtina waa isdul fuushay ka daranay imanka waqtigii cimiladii baa isbedeshay dadkii xoolo baa ka baxay deegaankii baa soo farbatay caruurtii maanta ciriiri bay ku jirtaa ilaa 150 baa iman ku jira in kalena waaba laga daayay sababta looga daayay waxa weeyaan deemeel loogu dhigo anigu waxa baan idhi war dhirta inoogu dhiga dhirta hoosteeda inoogu dhiga marka waxaan leenahay de waqtigii aad dumisayna waad ogayd wasiirka waxaan leeyahay waqtigii aad dumisayna waad ogayd gol fiida aad dumisay ilaa alaan kaan kumad soo noqon marka anigu ma cambaaraynayo laakiin waxaan leeyahay caruurta degdeg waxa loogu dhiso deegaankuna waa deegaan ballaaran waa deegaan isdul saara si fiican ha loogu soo gurmado wasaaraddu ha soo gurmato golaha deegaanka iyo gobolkuna ha ka warayo assalaamu calaykum cabdiraxmaan samriye TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Gumar.